وعدنبا يباتو تكويغينو مالك يجي لدعيو دلالك يجي لدليو يجي يجي لقبي وعدنبا يباتو تكويغينو مالك يجي لدعيو دلالك يجي لدليو يجي يجي لقبي عادي يسمو لقد يو والد عندي عادي يسمو لقد يو والد عندي يمشو ديني مينو ما توانبتي يمشو ديني مينو ما توانبتي يقلب ويودك يقنا ليل حبلو لدعي وعدن بار أوابنو نلقى في وايو دولك يقلب ويودك يقنا ليل حبلو لدعي دكتور ردي أبيك يبو دورا مينو ووالد عدي دكتور ردي أبيك يبو دورا مينو ووالد عدي يمشو ديني مينو ما توانبتي يمشو ديني مينو ما توانبتي كنغا كاهو دينعيس دافعي لو بغيسيغا وحنا نوم دامو سود ويسن ميني كنغا كاهو دينعيس دافعي لو بغيسيغا وحنا نوم دامو سود ويسن ميني عيدة قبنيمو إيغانا موديرا بريدة سناي عيدة قبنيمو إيغانا موديرا بريدة سناي ديمشو ديني مينو ما توانبتي ديمشو ديني مينو ما توانبتي kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkan gaarka oo aynu ku eegi doono howlgalkii maleeshiyada kooxda argagixisada ah ee al-shabaab looga xureeyay deegaano ka mid ah gobolka Hiiraan 19 bishan Maarso aynu ku jirno ayaa ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa midowga Afrika AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda dalka aynu walaalahan nahay ee Djibouti Hiilwalaal waxa ay kula wareegeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan abbaaro 12 habeenimo ayay ciidamadu ka soo dhaqaaqeen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyagoo lugta soo mariyay tuulooyin iyo deegaano hoos yimaada magaalada Beledweyne ciidamada ayaa soo gaaray deegaanka Bu'a Qable oo qiyaastii 90 kiiloomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo halkaasi ay hore uga talinayeen kooxda argagixisada ah ee al-shabaab
ma jirin wax iska caabin oo ciidamada qalabka sida iyo kuwa amisom ay kala kulmeen argagixisada al-shabaab waxaana ciidamadu ay abaaro 5:45 daqiiqa ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Buulaburde ee gobolka Hiiraan. ciidamadu markii ay soo gaareen magaalada Buulaburde waxaa si weyn u soo dhaweeyay guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Buulaburde. muuqaalka magaalada Buulaburde oo ah mid aad uga gidisan magaalooyinka kale ee gobolka marka loo eego 6 sano oo ay ka talinayeen kooxda argagixisada ee al-shabaab waxaa ka muuqday dayacaad xoogan oo ay u geysteen maleeshiyada kooxda argagixisada ee al-shabaab. markii aynu galnay magaalada Buulaburde waxaynu tagnay xarunta degmada Buulaburde halkaasi oo ay ka muuqdeen burbur aad u xoogan waxaana sidoo kaleeto aynu ku arkaynay qamri iyo maandooriyaal kala duwan oo ay kooxda al-shabaab ay ku isticmaalayeen gudaha degmada Buulaburde. meel fagaara ah ayaa mas'uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha amisom waxay kula hadleen 100 qofood oo ka mid ah dadka Buulaburde kuwaas oo isugu soo baxay soo dhaweynta ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee la wareegay gacan ku haynta magaalada Buulaburde. waxaan leeyahay wixii dhibaato ah oo idin gaaray intaan kala maqnaynay ama anaga la gaaray ilaahay ha loo dhib yareeyo. waxaan leeyahay wixii dhintay Allah u naxariisto wixii dhib gaarana Allah u dhib yareeyo hadday dhankiina ay tahay iyo hadday dhankayna ay tahaba ilaahayna waxaan uga mahad celinaynaa mar labaad anagoo caafimaad qabna inaan halkaan aan iskugu nimaado deegaankayniya oo dalkayniya oo anagoo dad isku ah oo isku diin ah oo walaal ah. walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin meeshaan nimankii shalay galab ka tegey haddana adinka qaarkood idiga dhex buuxo hadalkaygaasna oo inta badan ay maqlaayaan kuwa kalena meelay hadda ku sugan yihiin aan ognahay waxay meeshaan ku hayeen ilaahayna waa og yahay aduguna waa ogtihiin anuguna waa ogna. waxaan leenahay wixii wanaagsanaay oo ilaahay ka raalli ahay ay dadkaan iyo dalkaan iyo diinta islaamka ay ka qabteen nimankaas waa uga mahad celinaynaa. wixii ay dhibaateeyeen ay ilaahay dibbi uga galeen ay ummaddan dibbi uga galeen ay diinta islaamka kula tagrifaleenna ilaahayna waa kula xisaabtamayaa ummaddiisuna waa kula xisaabtamaysaa haddii ilaahay. mudanayaal iyo marwooyin galabta war badan oo aniga iguma jiro meesha dawladdii Soomaaliyeed joogta ciidamadii amisomaa jooga hadalka inta ugu badan ayagaan u reebi doonaa amarada inta ugu badan ayagaan bixi doona maadaama ay ayagu wataan hadda tiitalkii dawladnimo. annaga waxaan nahay buul moogtahay saad ogtihiin anagu madaxaasay u kindabaysay hadda xilkii waa layga qaado Cabdi Faarax nimo badan waaba noo dhaxay marka amarada ayagaa bixi doona. waxaan jeclaan lahaa oo idin soo jeedina inaad qaadataan amarka dawladda adinkana danow idin yahay annagana danow loo yahay. waxaan jeclaan lahaa inaad adugu intaana leediwaanin aad iswaanidaan. waxaan jeclaan lahaa waxaan annaga aan qaban doono ama waxaan ku dhaqmi doono dad islaam oo diinta islaamka ku dhaqmaatiino caqlina wada qaba iyo wixii nimankii meesha shalay ka tegay ahaayeen inaad isbarbardhig ku samayn doontaan. warnabtu maalimay goda maalinta go'aysa ilaahay baa yaqaan maalinta go'aysana ilaahay baa yaqaan waxaan dilaayana ilaahay baa yaqaan qof kaloo garan kartaa ma jirto. haddana in la yidhaaho waxaan ka cabsanayaa hebel ama koox hebelaan ka cabsanayaa iyo in loo aqoonsanaado in naftu maalin leedahay waxaas waa isqaadi karaba waa isqaadi aan kala dayno waxaas. haddana waxaad leedihiin kuwa korontadii iyo waxay dasheenaan la yidhi iyo waxyaabihii macaamilka ahay oo bulshada maanta waa la dimiyo waxaa amarkaas ayagaa baxshaa la yidhi. annaga lolooma imaan oo bahdayni iyo dadkayna saaxiibadayni odayaashii kulli waa loo imaalayin maantoo dhan microphone aan ku noqonayna waxa la leeyahay shabaabaa la dila war ilaahay xoog dila haddii shabaab adinka idin dilo wax ilaahay ka hor idin dilaa uma jiraan ogaada sidaas u ogaada wax ilaahay ahayn oo wax dilaa uma jiraan ilaahayaana waxa qof kasta dilaa og waqtigu dilaana og wax kalena ha aaminina qalbigiina ka saara. warkaas ka bogsada maanta kadib qofna saacaddaa kadib nimana ilmaadeerna ay gabdhaha ilmaadeernaho xagga iga qaada maanta hore magaalada dhex socda xaggaa layga qaada nabad aan laylhooha layma soo ordo dadkaan isku soo ordi jirna war haddaad ii soo orodin iyo haddaad iga wareegatiin saacaddaad nima rabta inaad dhimanaysid aniga dadka ila mida. walaalayaal marka waqtiguna waa gaaban yahay
warkuna rag badana oo dawladdiia waa idiin sheegay iyo raggii amarada bixi lahay meesha tan waxaa loo baahan yahay dawladda amarkeeda in loo hoggaansamo dawladdiinana taageera caalamka waxaan dawlad lahayn u kama shaqeeyaan xoolaa ka shaqeeya bis anaga xoolamaan nahay waxaan dawlad lahayn caalamka kama shaqeeyaan dawladnimana dadkeedaa ka shaqaystay iskama timaado diyaaradna laguma keeno dawladdiina la shaqeeya amarkeeda qaata ayadana dawladdu danihiin ay ka shaqaynaysaa aadaad u mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad saad u yeeritaanka dawladda ugu soo hogaansanteen ilaahay hay karin waxa uu yidhi raggu waa dibaaxaa ilaah taliyo weeyaane meeshaan u taahay maantaan cagaha soo taag in badan baan kala maqnayn waad ogtihiin waxaan ku maqnayna waxay ahayd gumaysidiid iyo kuwa diinta qarribaa in lala diriro la baabi'iyo sida haddaba aan wadnay ilaahay nagu guuleeyey waxaan mahad weyn u celinaynaa ilaahay kuwin ka sokow walaalaheen nala soo gurmaday iyo awoodda intaa la egay nala socota ee walaalaheen hil walaal nooga timid iyo intii kaloo iskaashi ah ee nala socoto waan ugu mahad celinaynaa waxaan idiin sheegayaa reer buuliburto anugu hadda ku hore iyo ku dambe haddii la yidhahdo waxaa iga weyn xornimada iyo sharafta iyo diinteenna munazalka ah ee wanaagsanen u dagaalanno aada iyo dalkaada iyo dadnimadaada iyo shakhsiyaddaada iyo sharaftaada waxa muhiimaddu tahay waa taa waxa intaana u timid maanta oo walaal u yimid oo ummad kale u timid dab haddii la arko bani aadamkao dhan baa wada damiya waa wax nolosha bani aadamka ka dhana shabaab iyo alqaacida waa dabna muslim iyo masiixi isugu tagaya waa in la iska wada damiya ha u arkina dadku isla wada socda ee muslim iyo masiixi haddayba jiraan ama waaba jiraan maanta isbaahisiga soomaaliya ka jira way ku jiraane wax dab oo dadkoo dhan liddi ku ah la arka nolosha bani aadamka sidaas darteed waa inaad saa u fahamtaan oo aysan ahayn kana gaaliya kana heblowey war wax ka darano wax oo dhan badilayaa yimid oon cidna daynayn qamriyaan ka soo bixinay qamri meeshay xafiiska idinkaga dhigaayeen ilaahay baan lagu og inaanan dulminaynin sidaas daraaddeed ninka idin sheegtay sheekhnimo iyo muslimnimo qamrina ku cabaaya guriga ama xafiiska war ilaah baa idinku dhaarsheeyey wejigan idin duubanaya caaw idin dilay qaarkoodna keliyayba kala baxaanaan maqalna annagu waana xaqiiq arrintaas waxay doonaanay sameeyaan alxamdulilah ilaahay waa naga guulsid ogaada aamina ilaahay weyn aamina inaad halkaan adinku leedihiin annagu waana taqaaniin wejigeennuna ma daboolna wuu furan yahay cabdicasiis duurow waa taqaaniin waa ina duurow raadkiisaad taqaaniin wiilasha nala socdaan soo xarbinay mushaariga ee dawladda soomaaliya u shaqeeyo ee dishibliinkooda la soo hagaajiyey kii waxaa leeya bani aadam baana qalad ka dhaca fartaa lagu fiiqaya in hebel waa la leeyahay sharcigaa la waafajinaya war ninka ku dili nimaad garanaysa waay ninka wax ka hali nimaad garanaysa waay waxaadanba garanaynay suran intee la geeyaa sidaasa ku oggolaateen damiirtii diiraannimo iyo tii buuliburtinimo aawe war waxa dalkan adinkaale u dhinta fahma nin weji duban dooni mayno war iska diida dulliga diida 7 sana idinka maqneen wallaahi iyo billaahi tallahi aan ku dhan maanta wax iga hadlaysa anigu ma jiro kursina dooni maayo haddeer iga ma ahan kursi doonis iga ma ahayn aniga ee dullidiidnima iga eedno waana diiday weligiina waa diidaa waxaan halkan ka salaamayaa guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane cabdi faarax laqayo taliyaha ciidamada amisom abaanduulkooda taliya xigeenka subagle cismaan nuur subagle korneyl cismaan dubad oo ah taliyaha hiil walaal saraakiisha ciidamada qalabka sida khaasatan kuweena milatariga dhammaan dableydii iyo alifleydii iyo saraakiil xigeenada kale iyo intii gobolka hiiraan wax ka xoraysay hiil iyo hooba bahda saxaafadda waa muhiim haddii kale khadka naga saaraya salaanta islaamka kadib mahad ilaahay u sugnaatay intii gobolkan wax ka xoraysay oo hiil walaal ay koow u tahay ayaa mahadda labaad leh iyo ciidamadeenna qalabka sida waxaan rabaa inaad kugu bishaareeyo reer buuliburte ha u arkina in inta laydin yimid laydinka tegaayo hadallada intooda badan waxaa ka hadlay mudane dabageed guddoomiyihii hore gobolka hiiraan waxaa haray waaba iska yar yihiin laakiin qof waliba meel u taaban doona
ninka aad wax ka doonaysaan ee shabaab la yidhaahdo annagu nabadiida u naqaanaa waxaan u naqaanaa qarandiid magacyo badan diirataa loo yaqaanaa diirato inay yihiinna waxaa markhaati ka ah magaalada buulaburta markaa fiirisaan iyo siday ahaan jirtay iyo siday maanta tahay farqi weynaa u dhexeeya aadaan uga naxnay xaqiiqa waxaa meeshaan saldhigga booliiska ma meelay wax ku qali jireen ama naqaano aad iyo aad u foolxun yahay meel kasta waa baaba naf iyo nolol diid waaye ummaddaas annagaa idinka celinayna marka hore marka labaad iska celiya nala jooga celintiina waxaa waaye lilah athana'u lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam walaalaha reer buula burde yar iyo weynba assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib runtii ma rabo hadal badan inaan idhaahdo waa layga xigmad badan yahay walaalahay iga horreeyey baa halkan ka hadlay laakiin magacayga haddii la xusay hadal kooban inaan idhaahdo waa lagama maarmaan runtii waxa weeye waxaan aad ugu faraxsannahay maanta inaan inila joogno buula burde oo runtii mar horeba inaan imanna ay ahayd laakiin ilaahay qadaray inaan maanta aan imanno shalayta inaan soo gaadhno oo idiin imanno xaqiiqatan waxa weeye hadallada xigmadda leh walaalahay ay ku hadlayaan yacni qofka bani aadamkiihi ilaahay waxa ku karaamadeeyey waa caqliga iyo maskaxda weeye inaan caqligeenna adeegsanno inaan fikirro kuna diidno wixii xun wixii wanaagana aan ku qaadanaay waxa weeye waxaa nafaraya caqligeennaa nafaraya nimanka nabadiidka magaca shabaabka loogu yeedho runtii magacaasi uma qalmaan oo waxaan odhannaa magac kale aan ugu yeedhnaa wixii islaamku uu qabaa loogu yeedhi oo ah inay yihiin dad faasidiina mufsidiina oo wixii wanaag ahaa faasidinaya dad sharwadayaala oo shayaadiina runtii waxaa yaaba hadalkii walaalkeed yuusuf haddeera uu lahaa oo ah wa nimankani hadday janno doonayaan oo xuuran cayni ay sugayso nin amiirahoo isqarxiya runtii lama hayo waa kow hadda magaalada markaan soconnay malaha xaggaas waxbaa laga fiirinayaa malaha waxa weeye soo jeesta nebiga ha lagu salliya calayhi salaatu wasalaam waxaan magaaladan dhex marray waxaan aragnay quryo aad u qurqurxoon waxaa la leeyahay gurigan amiirkaa gelayay baa la leeyahay gurigan ayaa gelayey amiirkaa gelayay waxaan aragnay magaaladii oo aad iyo aad inteeda kale yacni qashinku uu ka buuxo laakiinse guryaha nimankaasi ay galaan ay aad u qurxoon yihiin waxa hubaala nimankaasi hadday janno jecel yihiin oo aynan adduunyadan dan aynan u lahayn inay iswada qarxiyaan bay ahayd yowma waleyla ay iskaga tagaan adduunyada aakhiro tagaan laakiinse waxay ku ciyaarayaan caqliga dhallinyarteenna runtii waa sidaas weeye caqliga dhallinyartaa barbaartaa soo koraysa ayaa caqligayga lagu ciyaaraya war waxaa la rabaa ummaddeennan inay shaqaysiiyaan caqligooga inay shaqaysiiyaan nimankani wallaahi adduunyana dhiqi maayaan aakhirana dhiqi maayaan midna dhiqi maayaan midna uma socdaan miday u socdaan ma laha adduunyana dhiqi maayaan aakhirana dhiqi maayaan waxa weeye inaan isbadbaadinno annagu aad iyo aad haddaan nahay walaalihiin hiil walaal reer Djibouti runtii oo idin jecel ciidamada amisom waan ka tirsannahay laakiin haddana waxaan nahay walaalihiin reer Djibouti oo idiin soo gurmaday waxaan jecel lahay inaan wax ka bedelo waxaa hadda aan ku arkayno magaalada Buula Burde oo qashina oo fool xumaa oo nolol xumiya oo ka muuqata
waxaan adduunyada aad la wadaagi doontaan reer Buulaburdo nolosha adduunyadu ay wadaagto oo caalamku wadaago ayaad la wadaagi doontiin dhalinyartu way dheeli kubadaha ciyaari way farxi doonaan waxay la ciyaari doonaan tiimam iyaga dhexdooda ciyaari ciidamada Soomaalida la ciyaarayaan annaga la ciyaari doona waxaan dhigaynaa kuuba waxaan soo celin doonaa bilicda magaalada meelaha qashinku hadda uu ka buuxo ayaan sifayn doonaa marka waxaan idin leenahay war waxa weeye ilaahay ku mahadiya ummad islaam aanu nahay dhammaanteen Soomaali baa tihiin isir baa tihiin dad isdhalay baa tihiin in qaal murtadiin iyo caqligeena lagu ciyaaro maaha war wax murtadihi ma jiro niman baa caqligeena ku duulay oo ku duulaya oo raba inay ku raaxaystaan gabdhaheena ay ku raaxaystaan meel kale ka yimiday ayaa raba inay waxa adeegsadaan afkaarta adeegsadaan ay ku noolaadaan maalmo ayay rabaan laakiin xaqiiqo maaha diinna maaha wallahi inay diin ahayn maaha diin waxay rabaan inay sidaa ku noolaadaan ay waxa iskaga adduunyada waxaasi afkaartaasi waa adduunyo ka xaaraana war may Sacuudiga ku dhaqaan war may wadamada Carabta ka yimaadeen ku dhaqaan war may ku walaaleeyaan maxaa ummadda Soomaalida loo qasaya maxaa loo burburinayaa ummadda Soomaalida maxaa maskaxdeeda iyo caqligooda loogu ciyaaraya maxaa loo qarxinayaa dhalinyartooda maxaa loo qarxinayaa maxaa horumarka loogu diidayaa maxaa inay ummadda Soomaaliyeed ee taariikh lahayd ee dhaqan lahayd maxaa loogu ciyaarayaa dhaqankeegii diinteedii culture-koogii ummadnimadoodii maxaa loogu ciyaarayaa war iska qaban ummadda inay iska qabatiin oo caalamka la jaan qaado Soomaalidu meel wala joogtaan inaan la jaan qaadaan la rabaa hadda Soomaali iyo halka nimankaas ay gaarsiiyaan soo lama socotiin oo la socotaan Soomaali magaceega halka la gaarsiiyay waxa la rabaa Soomaali in lagu soo celiyo maqaamka Ilaahay oo ah ummad sharaf leh oo karaamad leh oo waxa weeye passport leh hadda ayaa dhoofi kara halkee tagi kartaa xuquuqdeed leedahay caalamka xuquuqdeed ku leedahay Soomaali baa tahay xuquuqdeed ku leedahay war waxa weeye hadda waxba ay noo qabsoomay dawlad baad leediin waad la socotaan sidoo maaragtay ciidamadii abaandulo ah qaranka amisom qaranka abaandulo ah inuu nala joogo oo hawsha nala qaybsado waxaad iga guddoontaa u sheeg madaxweynihii Jabuuti wasiirkiisii taliyihii ciidanka ninkii amisom uu ahaa nadiif ninkii madaxda u ahaa iyo ninkii force commanderka ahaa intuba waxay yidhaahdeen naga gaadhsiiyey tahniyad iyo guul iyo hambalyo naga gaadhsiiyey إن شاء الله مركا أنت أنا وجودوني أنا إذا كوكيلة يعني الحمد لله إله بقى محله إن شاء الله واحد سواق شيء مسافر دير وأنا لو قلت لك عيدا صعدة وبقول إيه لو تنين تسوق كيلومتر يصيروا دقين بيعبين رفاتسن حتى شباب مسوقين حاليا مقالة سوق لنا وحس العين كل بيبقى تقول الملاس كمغلي دونتان مبتع لكن وين لا يابين إسلا حالي مركي لو يمدي لا حدنا سربرايز أما وحدا كفار كاسي كومغين marka runtii aad u maasantiin waa gigsateen walaalaha heel walaal iyo anagoo dhan iyo ciidankeena si fiican u shaqeyseen niman dhalinyaro oo gigsaday oo tisikadiisa ku soo baxay oo wax badan ka dhiman yihiin ayaa tihiin waana ku maasantihiin runtii amaanteeda iyo waa leedihiin iyo abaalmarinteeda intaba guushuna gadaal iska soo raacdaa waxaan idin ka rabnaa marka u wada soconaa hal waajib waay koow inaan ummadda xoreyno ummadan waa la dhibay dhowr iyo 20 sano 23 sano dhibaato ku jirto ummadan waxa dhibka Ilaah baa ka qaadi kara laakiin waxa la rabaa in loo saciyo oo niyadu ay tahay ummadan in nidaam fiican oo amni iyo qof walba diintiisa iyo xoolihiisa iyo naftiisa xor u yahay oo cidina ka deedeyn qofka naftiisa xoolihiisa inuu xor u noqdo waa arrin insaani ah oo muhiim ah arrinka marka idinku aad ugu mahadsan hawshaas u soconaa annagoo marka wanaaga u socono u baahan oo u xanuunsan oo inta u soo sameeyay waxaan rabnaa ka codsanay inay wax yar naga xumeyn sida aan ummadda ugu shaqeynayno aad yeeli jirteen wiligiin anoo u sheegaa ilaa madaxda Soomaaliya madaxweynaha ugu sarreeya waan arkay waxaan u sheegaa madaxweyne ka waran dhalinyaro tababar wiliba ku socdo 400-500 oo qof ah oo baaris xaafad gashay oo gabdhaha dahabkoodii gacmays oo bastoolad uu ka raadinayo dahabkii aan dan kale hayn ka waran waa la yaabay waan runtii saas waa
وكما تنتين شغلين كقبتين ولا أجيهاي وهذا جنك أمسهم لينك لبعض أو يدي غريو وهو حقوله في عوان محان نودي من مرك وحير نودي من هذا السيد ولا يسوي يوكله إنا جاجو إيو وحكلو مالك مغني إني وحنا حمايان ما وينو مورلك أنا جاجيسن وأنا أجاه تارجت كأما ماشي عن صعدة إني تهاي إن جارو أنا جاجيسنا وحنا صعنا وحوينا ومتى نقول متى هذا ما يرحكوا حرالي يري وحنا صعنا قبل كنا يقول هاندل كميشن الكجبا إن ضدك أمني هي عدالة هي إسلامنمو إن أسوء علم والمذكور رأسنا يتاس هذه ساعة هو فرينا هرت ديسبلين هذا وينو جرا قفكي إذا كمل ضدك عشان تفرد فرفر الأجمله هذا نمد لقى ما مجرت قفكي الأركون نقل لحظة وديسبلين الحمى كل لحظة واسمع الحمى كل لحظة أما حوالي إسلامات فرتيستا محكمة هذا ديارنا لو صار إسلامات وأنا قدام إيماني سشلي جديد كذا دكوا محكمة عيمنا وأنا قدام إيماني إن شاء الله inkastoo magaalada Buulaburde ay ahayd meel istaraatiiji ah kooxda argagixisada ee al-shabaab marka loo eego deegaanada ay haysteen waxa ku yaala bridge isku xidha degmooyinka ay ka talinayeen kooxda argagixisada ee al-shabaab sida degmada Ceelbuur si kastaba ahaatee markii ay ciidamadu la wareegeen magaalada Buulaburde waxa bilowday howlgallo xooggan oo lagu xaqiijinayo ammaanka waxaa bilowday in deegaano muhiim u ah dadka oo ay maleeshiyada kooxda argagixisada ee al-shabaab ay ku aaseen miinooyin aad u tiro badan ay ka soo saareen isla markaana ay goobo fagaara ah ku qarxiyeen qaarkoodna ay ka saareen magaalada
guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii gaarka aynu ku eegeynay howlgalka maleeshiyada kooxda argagixisada ee al-shabaab looga saaray deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan barnaamijka anigoo cabdiweli xasan shibcaale cawka ayaa idiin soo saaray idilana socodsiinayey inta aan daawadayaal barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxdhanba dhibaato dudka weligayno maalkayagi la dhacayo dhallaankayagi la dilayo dhiigayaga la qubaye waxdhanba dhibaato dudka weligayno maalkayagi la dhacayo dhallaankayagi la dilayo dhiigayaga la qubaye يعد يسمو لقد يو ووالد عندي يعد يسمو لقد يو ووالد عندي يمشوا 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 ديني ما توادبتي